baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee 2021 ayaa la filayaa inuu noqdo baarlamaanka xigtada xididka iyo saaxiibada iyadoo xubnaha soo galaya badankood ay ku iman doonaan siday ugu dhow yihiin madaxweyne goboleedka deegaan doorashadooda. dadka siyaasadda darasa ayaa ka cabsi qaba intaasi ay baarlamaanka ka dhigto kii ugu tayada iyo waxqabadka xumaa maadaama dadka xildhibaanada noqonaya ay badankood ku imaan doonin aqoon iyo karti. albaabkan ayaa waxaa shalay si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen waxaana la filayaa inay ku daysadaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada kale. Laftagareen ayaa qaaday tallaabo yaab leh kadib markii uu xubnaha aqalka sare ee ka soo galaya maamulka koonfur galbeed badankood uu ka dhigay kuwa ka tirsan ehelkiisa ama saaxiibo dowla ah. Laftagareen oo dhawaan soo saaray liiska musharaxiinta 5 kursi ayaa 4 ka mid ah ka dhigay xigtadiisa waxaana dhammaantood shalay si guul leh loogu doortay magaalada Baydhabo iyagoo aan wajihin tartan adag. 2 ka mid ah xubnaha shalay la doortay ayaa waxa ay qabaan gabdhaha u dhalay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan oo loo yaqaan taliye shub waxayna la dhasheen xaaska Laftagareen oo sidoo kale u dhalay taliyaha iyaga oo Laftagareen la noqonaya oo uriyo walaalo. xubnaha shalay la doortay ee xigtada la ah Laftagareen ayaa kala ah 1 Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ah wasiiru dawlaha arrimaha gudaha Soomaaliya kana soo jeeda beesha Hadlamo waxa uu qabaa Anisa Mahad Cabdiraxmaan oo ay isla dhasheen xaaska Laftagareen Zamzam Mahad Cabdiraxmaan. labadaba waxaa dhalay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan. Aadan Cabdinaasir Maxamed waxa uu bedelayaa Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo kursigan ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay waxaana ka tirsan yahay xisbiga UDP ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. 2 Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka soo jeeda beesha boqol hore waxa uu qabaa Ilhaan Mahad Cabdiraxmaan oo sidoo kale isla dhasheen xaaska Laftagareen Zamzam Mahad Cabdiraxmaan. Dr. Xuseen Maxamed Daahir waxa uu bedelayaa Senator Timiro Maxamed Cali oo kursigan ku fadhisay 2 sano ee tagtay. 3 Ayaan Aadan Cabdulaahi oo ka soo jeeda beesha Hariin waxay ilma adeer la tahay madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Laftagareen waxay bedelaysaa Senator Ilyas Cali Xasan oo ka soo jeeda beesha Eelay. kursigan oo ay lahayd beesha Eelay ayuu gabi ahaanba Laftagareen ka soo wareejiyay waxaana siiyay beesha Hariin si ay kursigan ugu fadhiisato Ayaan. 4 Maxamuud Maxamed Cabdi Garawe oo ka soo jeeda beesha Geeladle wuxuu ka tirsan yahay waaxda dawladda hoose ee magaalada Baydhabo waxaa saaxiib aad isugu dhow ah Mahad Cabdi Garawe aabaha Maxamuud iyo Laftagareen. senatarka kaliya ee shalay la doortay aan wax xiriir ah la lahayn Laftagareen ayaa ah Zamzam Ibrahim Cali oo ka soo jeeda beesha Jiido. Zamzam ayaa hore kursigan ugu fadhisay waxaana sababta uusan Laftagareen u taaban kursigooda ay tahay in Zamzam uu qabo Suldaan Warsame Ibro oo ah suldaanka beesha Jiido oo aan loo dhawaan karin. ila wareedyo xog ogaal ah oo caasimada online la hadlay ayaa sheegay in xubnaha uu soo xulay Laftagareen uusan ugu danayn cid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya balse uu qoyskiisa ugu daleynayay. Laftagareen musharax uma danayn waxa uu dhistay qoys siyaasadeed waxa uu doonayaa xildhibaano isku xiran uu kula gorgortamo musharaxiinta madaxweynaha kana iibiyo kan ugu lacagta badan ayuu yiri ila wareedyo la hadlayay caasimada online. sida aan xogta ku helnay waxaa sidoo kale la filayaa in 5 kuraas ay u harsan inuu sidaan oo kale u soo xulo. ka hor Laftagareen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xubnaha aqalka sanadka badankood ka dhigay kuwa saaxiibo ama isbahaysi siyaasadeed la ah inkastoo uu Laftagareen kaga dugan yahay inuusan keenin ehelkiisa. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa meesha ka saaray dhammaan xubnihii ka aragtida duwanaa ama taageersanaa madaxweyne Farmaajo.